sida loo yahayna reer laascaanood waa dhibane awalba hore u dhibbanaa kuwa isir soocay iyo kuwa kaleba ka dhibaatada geystay oo ah dad maleeshiyaad ka yimid gobollada galbeedka ee Soomaaliya. waxaa goordhoweeyay warbaahinta la hadlay Garaad Cabdirashiid Waraab Dheere oo kamid ah golaha dhaqanka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ama beesha Dhulbahante. Garaadka ayaa si kulul uga hadlay falalka ka dhacay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ee lagu raafay dadka shacabka ah ee gobolkaasi deganaa. Arrinta marka hore waxaan leenahay waa arrin aan aad uga xunnahay haddaan nahay waxgaradka Soomaaliyeed. waa arrin aan raalli ka ahayn, waa arrin aan aad uga xunnahay, waa arrin aanu ka bixinayno raaligelin dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee dhibaatadaas soo gaadhay. waxaan caddaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Laascaanood inay yihiin dad reer Laascaanooda. maxaa yeelay Soomaalidu qof walbaaba wuxuu leeyahay meeshuu degan yahay, wuxuuna degi karaa Jamhuuriyadda Soomaaliya Raas Casayr ilaa Raas Kaambooni ilaa iyo Lowyacaddo. qofka Soomaaliga wuxuu degi karaa meeshii uu doono dan moodo. sidaa daraaddeed dadka reer Laascaanood ee la isir soocay ee dhibaatada loo geystay waa dad reer Laascaanooda. dadka ku hadhay magaaladuna waa dad reer Laascaanooda. sida loo yahayna reer Laascaanood waa dhibane awalba hore u dhibbanaa kuwa isir soocay iyo kuwa kaleba. inta hadhayna gaar uma noqon karto eedaysane, maxaa yeelay iyaga ayaa dhibane isdhibaya. arrintaa waxaa ku eedaysan maleeshiyaad ka yimid gobollada galbeedka ee Soomaaliya ka yimid oo ay ku heshiiyey dhibaataynta reer Laascaanood. sidaa daraaddeed waxaan leenahay in ay dadka dhibaatada wadaa ay ka waantoobaan dhibka ah, kana daayaan isir sooca dadka reer Laascaanood, ka daayaan inay kala faqooqaan. waana dhaqan maamul ma aha, dhaqan dowladeedna ma aha, waa dhaqan jabhadeed. ummad Soomaaliyeed in saq dhexe iyo maalinimaba guryaheedii lagala baxo, ganacsigoodii oo aysan ku noqon karin lagala baxo, carruur iyo dumar la gebagabeeyo iyagoo wax war haynin, baabuur xamuula lagu daldalo iyagoo wax dembi ay geystay la arag. dadka reer Laascaanood ee ku hadhay meeshana waxaan leenahay arrintaa inay ka dhiidhiyaan, inay is-hortaag ku sameeyaan. hadal badan iyo baaq badan oo la diraa wax badan tari mayso. jabaadahana maba gaadhaan hadallada dadka waxgaradka ah ilaa indhahooda wax ku arkaan. sidaa daraaddeed waxaan leenahay dadka reer Laascaanood arrintaa inay ka dhiidhiyaan, inay banaanbaxyo ka dhigaan, inay arrintaasi ficil uga jawaabaan. intaas ayaan kusoo gabagabinayaa. sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.